هذه أبان وجمع هذا نقينا إسحلقانك iyo xilkasnimada ay muujiyeen gudoomiye baasha iyo cali yuusuf aad baan uga mahadnaqaynaa sida ay u baadi goobeen ragga golaha ka maqan inay wada hadal iyo dialogue u furaan ay ku qanciyaan aanu ku hadlayo oo xildhibaan kure iga dambeyn doono magaca xildhibaanada gobolada awdal iyo salal saxaafadu saad ka warqabteen waxay arintayadu ka kacsanayd oo ka taagnay xeerka doorashada golaha wakiilada oo aanu diidanayn sidoo u dhan yahayba qodobka la yiraahdo saami qaybsi iyo temporary ba haddana lagu galaya sida odayaashu idin sheegeen waxay arintaasi ku qanacsan yihiin nalana qaateen in maalinka maanta xeerkaasi uu ahaa xeer xasaasiya xeer u baahan in tala qaran laga galo xeer aanay ku filayn in 28 mudane golahani ay xal ka gaari karaan saami qaybsigiisa sida ay gudoomiye baasha sheegeen in tala qaran xeerkan u baahan yahay xukuumaddu qayb ka noqoto axsaabtu qayb ka noqdaan golayaasha qaranku qayb ka noqdaan saami qaybsi lagu wada qanacsan yahay gobolada qancisa ay halkaasi ka soo baxdo annagoo mar walba priority-ga siinayna danta qaranka annagoo aan halkan ka cadeynayna inaan marnaba ka tanaasulin wixii aan dadkayga wakiilka kaga ahayn inaan 13 ka xildhibaan goboladaasi ku filayn haddana waxay u baahan tahay in tala qaran la galo oo waaqica iyo wax aan ku dacweeyno xaqiiqadeeda la taabto marka taasaan ku wada qanacnay taasaan niri gudoomiyahana waan kugu waafaqsanahay waajibaad kale qaranku nugu leeyahay ee golaha qayb uga nahayna waa sideedii waxaan seeb maanta ku faraxsanahay aan kaftamay xeerkaas oo aftugaaga lahaa inuu shirgudoonka iyagu nala fahmay afkii tugaag oo dabadeedna la yiri xeerkaas xeer islaam ha noqdo waan mahadsantii